الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد إن شاء الله عاوة هدي إلهي إدمه ويك هذا لدون برنامج كان أبارها أو هايستا دادكينا غارهان كونفور قلبات برنامج كاسان كهل دون هدي إلهي إدمه يقابكي أنا سوكا الميسا لهن يقابكي أو حقوق قبل لهن إن شاء الله هدي إلهي إدمه marka dhammaan walaalaha waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ay nagu soo biiraan wixii tala aan isla qaybsanno wixii maaragtay barnaamij aan isla wadi karno wixii aan ummadeen u qaban karno waayo Soomaalida waxay ku maamahday ilkowda jib wax ku gooyaan marka insha Allah haddaan iskaashano haddaan is caawino waxaan u malayn doonaa inaan guuleysan doono shay kasta oo maaragtay wanaag ah oo qofka bani'aadamka niyeysto haddii shaygaas uu ku guuleysto oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu garab galo waxa uu leeyahay laba ajar ayuu leeyahay haddii uu ku guuleysan waayna markasta ajarkiisa ma weyn doono marka insha Allah waxaan rabnaa walaalaha sugeynaa haddii ay leedahay wax yar waana ka xumahay waa soo daahay oo maaragtay arrimo shaqo iyo ku soo daahay iyo arrimo farsamada oo maaragtay live-ka oo ii suurtagali waayo hadda ii suurtagalay marka insha Allah marka waxaan rajeynaynaa in aan haddii ilaahay idmo aan waa salaaman tahay Axmed Kambo ku salaamay wadaal soo dhawow maxamed cabdullaahi soo dhawow ku salaamay asaas oo kale marka insha Allah bal haddaad sheergareyn kartaan sheergareeya si ma aragtay aan u tashano waxaa qaban karnaa u qaban haddii ilaahay idmo marka wax yarna waan sugaynaa walaalaheena kale oo soo geli doona haddii ilaahay idmo marka insha Allah ninkii sheergareyn karaan sheergareeyo marka kulleyba waxaan rajeynaynaa in maaragtay bal warbixin aan kala qaadano dhibaatooyinkan baaxadda leh oo hadda abaarta oo maaragtay dad badan oo ugu yaraan waxaa la sheegayaa maaragtay cukaash waa mahadsan tahay aad iyo aad jaakum allahu khayr insha Allah hadii lagu baahan yahay caawa haddii aalidma wixii tala wixii qaban karno wixii aan dadka maaragtay ku wacyigeli karno sidii maaragtay dadkeena u kaalmeyn lahayn aan maaragtay bal aru garab istaagi lahayn haddii ilaahay idmo waad ogtihiin maaragtay maanta ugu yaraan sidii la sheegay maaragtay ilaa dhimashada 348 qof ayaa maraysaa marka waa runtii waa arin aad u xanuun badan waaye marka waxaan qaban karno nin walba waajiba saaran in maaragtay haddii ilaahay uu gacan ka geysto nin walba waxaa saaran maaragtay waa sida aniga aan qabo waa farad way maanta in anaga qado quraac casho aan gurigeena ku cunno walibana aan raadino maaragtay dhereg dhacsi aan raadino oo aan fika cabno oo aan maaragtay melon mal wax isbeeniska ay dhahayaan aan cunno 6 jeer qofna oo hal mar uusan cunto cunin runtii ninkii maanta seexda waxaan u maleynayaa in maaragtay dambi ka soo gaarayba xataa waqtigan oo kale cibaadooyinka sida xajka iyo maaragtay cibaadooyinka waaweyn culimada qaar waxay qabaan maaragtay in dib loo dhigi karo oo aan maaragtay maadaama dad baahbaahi ay u dhimanayaan dadna biyo ay u dhimanayaan marka insha Allah isku darsano talo kudin waalidiin baahan yahay inta leen ku jirto inta maaragtay soo gali doonta kulligeena waa isu baahannahay marka bal qaabkii aan u tashan lahayn qaabkii aan wax u qaban lahayn waxaan arkay maanta warbixin ay soo qortay wax yar haddii aan computerka hore u fiiriyo warbixin ay soo qortay khayr Allah siiya idaal news waxay ku sheegeen totalka dadka dhintay oo u dhintay maaragtay cudurka cudurshumbiyoodka kaligiisa 387 inay marayaan 387 inay marayaan marka waa arkaysaa baaxad qof ay soo iska gooyay baaxadda ay leedahay waa garan kartaan marka runtii baaxad aad u xoog waa 387 waxaa laga yaabaa intaas in ka badan inay dhimatay oo hadda aan akhbaar laga helin marka maadaama anaga fursad aan leenahay maanta waxaan rabnaa dadka oo ka soo jeeda deegaanka koonfur galbeed oo degan insha Allah Sweden degan inaan iskaashano dalada hadda shaqooyin badan ay wadaa marka wax yar aan sugno dadka intay soo galayaan inta hadda soo gashay iyo inta soo gali doonto haddii ilaahay idmo marka waa sugaynaa haddii ilaahay idmo marka wax yar aan sugno ilaa 5 ilaa 10 daqiiqo kadibna wixii talooyin iyo su'aale iyaan isweydiin doona haddii ilaahay marka khayr aad rajeynaya waa sugaynaa wax yar insha Allah Hello,
بسم الله الرحمن الرحيم. dhactaalkaas waxaan u geliyey bal inaan warbixino badan aan raadinayay marka insha allah haddii ilaahayda marka barnaamijkeena bilaawadaana dhammaan akhyaarta hadda ka jirta salaamantiin inta hagala doonteena kudiina salaamantiin insha allah. walaalayaal way faday insha allah warbixin yar inay halkun ku macna geega warbixinadinka dambeeyay ee ka saabsanaayo koleeraha ama maaragtay shiwan biyoodka sida isinka araga haytaan news geega wayha qortee warbixin runtii eedin faahfaahsan warbixin runtii eedin xanuun badan oo ka saabsan maaragtay dhibaatooyinka oo inta qof maaragtay oo saameynka weel dhatay inkastoo warbixinta ita warbixin oo la aruuriyey oo maaragtay oo maaragtay confirm baahan la xaqiijiyay laakiin haddana warbixin runtii indhow xaqiiqda sayse araga haytaan warbixinta 348 qof yaa hadda dhimatay 348 qof waa 348 qof marka qiyaasa kortaan inta badan way dhimadeena macnaha cudurkun oo la araw shubanka ama suspected cholera macnaha way wahay shuban ama weli ama meelaha qaarna cholera ya aray laakiin inta badan shuban uu marka mal xaqiijin marka runtii araga haytaan dadka dhibaatada macnaha way yeesheen biyaha oo eed xun way isticmaalahayaan biyo eed xun way isticmaalahayaan aragtay way isticmaalahayaan tan kale biyaha oo biyo waro ay isticmaalahayaan marka dadka way baahayeen runtii way baahayeen in gargaar dhiniga maartay biyo linjeesado qof alla qofkii maartay ku qabad karo dhiniga biyaha muhiim waay gaar ahaan way baahaya maartay in xiriir la soo biyo dadka banaanka iyo gudaha in xiriir la soo biyo oo walaaga baahaya maartay si wada jir ah linka wada shaqeeyo oo si wada jir maartay linka wada shaqeeyo oo maartay indina in meelna wal la diirsiyo meelna wal indeerna way dhigi kartay marmar haddii liin wada shaqeyn in xoogii dhammaay hal meel ama hal degma ama hal tuula ka baxo taasina way noqodaasi khasaare runtii marka insha allah way codsadaanee marka lan adalankii akhbaar haayo fartaha teega karo oo ka saabsan ama su-aalnankii qabo qaabkii maaragtay bal taakuleen in soo biilahayni warbixinta oo dalada koonfur galbeed soomaaliya insha allah way rajeeyay in gadaal siinka sii doono dalada koonfur galbeed ee Sweden ka wada Sweden howli iyo qobati iyo walaagi hadda oo fadaan inuu qabano iyo walaagi hadda jadwalka ninka jiro marka jaalidaha kale ee gaar ahaan Scandinavianka gaar ahaan jaalidaha kale aragtay oo hadda ka sugan wadanka Europe kale way baahanaa naftii wala akhbaarna sii koraan walaagi talana sii koraan walaagi maaragtay oo tusaalana sii koraan marka dhawaayana insha allah warbixintan is araga haytaan oo geega ida la news gudbidid way macnaha total marka aad fiirido in kiiraan 4,000 iyo maartay 700 ilaa 4,200 qof oo karo inta maartay cudurka maartay shubanka ka dhigay dhibaatada jirtan way taa tuulooyinka oo lindeero korno oo shal xiran tuulooyinkaas ayaa maartay way sheenahayna dhibaato aad u xoog badan runtii marka way codsadaan dhammaan dadka warbixinaha oo haddii san hayta warbixin intuu ku badan in maartay hoos haninka qortaan si maartay update in soo bino oo maartay oo ingilin macna diiwaanka wal kasta way baahan in la diiwaan geliyo way wal kasta oo adduunyada la diiwaan geliyo 10 la ka qaaday sidii hadhow mustaqbalka qaabtii link horteeda faday qaabkii maartay oo arrimogaas maartay abaaraha iyo shubankaas maartay waqti kasta maadaama hanana qadiga ahaan umada tiiteen koonfur galbeed ka naqday qaabkii link horteeda faday insha allah marka hadhawaada lan allankii su'aal qabo lan allankii maartay warbixin hayna ka dhawaaye inta maartay lama deeqda ta kala sugahayna marka way seen ku codsadaan maartay bal wal yar in maartay qaabkii maartay wada shaqeeyo fadni gaar ahaan way eedin jeelay maartay dadka hadda qolka ka jiro ilaa iyo maartay dad yar laakiin wal kasta bini aadanka uu soo suubiyo dad yar bilaabe walaagi oo maartay lisgar walaagi ortay oo si la ka bilaabo maartay oo niisam la ka bilaabo daacadnimo la ka bilaabo guulaysadaan insha allah marka ujeedeen way taa qaabkii uu iniskaashada fadni qaabkii aragtay oo abaaro uu dhiyahayoon way aragaasay maartay wadad badan wal qobadahayan haddana wal qobadkii way taabiyaasay maartay in hayni wal qobad oo maartay leh coordination le macnaha oo lisku war qabo way aragaasay shubankii marba meel ka boodahay marka baahidii wili socoto
kuleelkii weli jira marka insha allah way rajayeen bal arrimogaas iskaashan oo qaabkii maaragtay howlagaas in fulay fadnay wadeer haddii aan ka noqdo idaada newsgate waxaa qoraynaa ilaa 384 inay ka dhimatay cudurka shubanki gaar ahaan meelo inka daran way haytee isbitaalka baydhabo shilidiis way la sheegeen 2357 qof 2357 way la sheegeen isbitaalka baydhabo shilidiis ilaa ay marka tiro dhimashadan macnaha way noqotay 32 qof macnaha runtii dadaal fayriya la suubi inkastoo maaragtay dadka way ka dhimadaan inta badan way in badanaya tuulooyinka gaar ahaan tuulada inka badan hadda la qori way haytee Oodiinle araga haytaan Oodiinle ilaa 69 qof ka dhimatay inta hadda la sheegay 69 qof waa Oodiinle tuulooyinka wareegsan way kala xigtay tuulada la araw Buurdhuxunle araga haytaan Buurdhuxunle way ka dhimatay ilaa 64 qof 64 qof Buurdhuxunle ka dhimatay Saliidiye markii qiyaas kortaan warkun oo hadda la gudbay waxay war insugnaani laakiin estimation qiyaas laakiin ku badnaado kore runtii warbixin way ka aanay warbixin inta warxun eedin dhow marka tan kale madacad fiirido tuulooyinka kale eedin saameeyay way kamid ahaa maartay oo gobolka ku baxsan degmada bay ku baxsan degmada Walaweyn madacad fiirido ilaa iyo maartay way ka dhimadeena maartay dad qiyaas oo 13 qof la sheegahay dad kale way jiraan in dhimadeen oon iyo haraad ama oon iyo biyo oo in badan maartay tuulooyinka hooskooda Shabeellaha hoose iyo degmada Waajid iyo degmada Aato ee gobolka Bakool ee wala sheegay oon iyo gaajo macnaha ama biyo in macnaha dhimadeen biyo la'aan tartis marka runtii arrimogaas dhiyahayaan mas'uuliyad weyn iyo qof kasta oo maartay wadankun wal kale qof kasta oo dad shee muuqan qof kasta oo maartay wadankun dhaladay waajiba ku saaran qaabkii uu si in gurmada fadhi ama shakhsi ahaan hangurmadoy ama hangurmadeen maartay ay group ahaan ama koox ahaan marka way siin ka codsadaan hadii ilaahay dama insha Allah in lees abaabulo oo degmo kasta degmada kale abaabulo oo abaabulkaasna haado maartay abaabul oo degmahaado macnaha jamaacadu way ka faalantaa runtii walweyniya ka faalanta sababtoo ah walaay adi maartay $100 ama $200 meel indira fadhi haddii maaragtay 10 qof iskaashadaan way dira karaan $1,000 haddii 20 qof iskaashadaan 2,000 dira karaan haddii maaragtay iskaashadaan 30 qofna $6,000 dira karaan marka waysiin codsaana gaar ahaan dadka maaragtay Scandinavian-ka iyo dadka Europe rooga in maaragtay la wada shaqeeyo qaabkii maaragtay qaabkii kaalmadu li aruuri waxa macna liimadeeyay fadi